iyadoo ay muddooyinkii u dambeeyay ay xaalad abaareed ka qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland ayaa gudoomiyaha degmada Coyaag Mudane Axmed Ciise Cawil iyo xogayaha degmada Coyaag Mudane Cabdullaahi Ow Aadan waxa ay ka warbixiyeen xaaladda abaareed ee ka taagan degmada Coyaag iyo nawaaxigeeda. Dhanka kale waxa ay ugu baaqeen cid kasta oo ka qayb qaadan karta taakulaynta dadka abaaraysan ka xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaanba in la soo taakuleeyo. in loo soo gargaaro xoolaha la daweeyo xoolaha ayaa lagu dhaqayay miyi iyo magaalada sida waxaan doonaa oo aanu jecelahay in xoolaha aad gudbad degdeg ah soo gaarsiin iyo deegaanka waxa isugu soo guuray meel kasta oo la isugu soo guuray bari iyo galbeed iyo nugaal ummadii oo dhan halkan isugu timi xooluhu iyo dadku aad iyo aad bay isku dhiban yihiin dhibaatada koobka waxa weeye xanaanada xoolaha oo aan imanin xoolaha xanaanadaan bay la go'een taasu waa mid caalamka oo dhan saameysay laakiin si ka warbixin aan anagu hadaan isku warbixin xukuumadda waa abaar xoogan baan haysan waxaana koobka xanuunka xoolaha xanuunka cosana wasaaradda biyaha baashi mudane wasiir xaaladda riigga ee degmada Coyaag inaad ku gasho waxaan ka codsanaa labada riig haamahoodu lixdan foostay qaadan daryeel ma qabaan taasoo labaatan foostay qaata tanaba lixdan qaata biyo xoolo waxay laga go'an biyo bayla waxaan u sheegaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo golaha wasiirada guddiga abaaraha dhammaan waxaan u sheegaynaa halkan inay ka jirto abaar aad iyo aad u ba'an biyo la'aan baahsan oo biyihii macaanay dadku cabbi jiray duunyadii iyo dadkii iyo wixii ku dhaqnaana ay abaartu aad waxyeelo badan u geysatay wax baxay iyo wax liita ay yihiin. Xamse Maxamed Yuusuf, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Coyaag.